dagaal kharaar oo aan waxba la isula harin ayaa mar kale dib uga qarxay deegaanka Dawacalo oo ka tirsan degmada Xarshin ee gobolka Faafan ee dowladda deegaanka Soomaalida. Waxa uu dagaalku markaan u dhaxeeyaa maleeshiyad hubeysan iyo sidoo kale ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida. Waxaynu eegaynaa khasaaraha dagaalkaas iyo baaxadda uu dagaalkaas leeyahay oo aad loola yaaban yahay. hubka ka duwan hubkii maalmihii la soo dhaafay ay dhinacyadan ku dagaalamayeen oo maanta mid ka waaweyn la isku adeegsanayo. waxaan kaloo aan eegi doonaa khasaaraha xaalka guud aaga uu dagaalku ka socdo sida uu saaka ku soo bilaabay mar kale dowlad deegaanka iyo ujeedkooda iyo sidoo kale qabaa'ilkaasi ujeedka ay maagan yihiin ayaynu eegi doonaa. soo dhawaada muuqaalka la garee janalkeena subscribe saar waraysi ayaan idinkaga hayaa xaaladda halkaas waxaana inta badan macluumaadka ila faahfaahin doona Siraaj Faarax oo ku sugan Jigjiga isla markaana isha ku hayay wax halkaas ka socday iyo sida uu ku soo bilaamay iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalka saakay dib uga qarxay deegaanka Dawacalay oo xadka ku yaala iraahda dowladda deegaanka Soomaalida. Siraaj soo dhawow bal saakay sida ay xaaladda guud tahay xog naga sii. waad mahadsantahay shuka walaal waan dhawahay waad ku mahadsantahay niyow saar maalmahan bal la soconay waxaad ogeydeen laga yaabo baraha bulshada ku arkaysan in deegaanka Dawacalay oo ka tirsan degmada Xarshin ee gobolka Faafan in maalmahan uu ka socday dagaal uu ka socday ay jabhada soo qaadeen oo lagu soo qaaday saldhigyo ay raayeen ciidamada New Booliska oo deegaanka Dawacalay oo halka saldhig lagu ciidanku ku lahaa ay ku soo qaadeen markay ku soo qaadeen marka ciidanka soo weerar waxay iskugu jireen ciidan jabhada iyo ciidan maleeshiya beeleed isku dhafan aroortii hore markuu dhacay muddo hadda 4 biri ah xilli laga joogay ahayd ciidanka oo xiradooda jooga la weer lagu soo qaaday ciidanku istifaaceen gurmadi iyo gaadhay ayagana gurmad qoladan kale maleeshiyaanka iyo jabhada wasabtaan ayaga gurmad baa soo gaadhay technical watay aduu halka khasaaro badan baa ka dhashay waa gartay qoladii jabhada ahayd iyo maleeshiyada wada socotayna waxay gacanta ku dhigeen saldhigii iyo magaaladii oo niman xuduudka ka soo tallaabay bay ahaayeen muddooyinkii u dambeeyay marka ciidanka deegaanku waxay iyo mas'uuliyiinta deegaanku waxay ku hawlaanayeen in dagaalkan si nabadgelyo ah lagu soo xalliyo nimanka jabhada aan xuduudka ka soo tallaabayna ay dib uga baxaan khasaaruhuna inta ku ekaa oo xuduudka ay ka tallaabaan markii hore meesha ka soo tallaabeen ay dib ugu noqdaan ay ka yimaadeen si aan shacabka macnaha loogu dhex dagaalamin oo in laga baaqsado dhiig badan oo daata oo si shacabkan lagu dhex dagaalamin inay nimankaas macnaha xuduudda baneeyaan taa dalabka way diideen waxayna kaga jawaabeen taa bedelkeeda waxay ka dhigeen inay dhaheen kolla taagtiin kolla tabartiin hub kalena ay gudihii soo geliyaan maalin marka darraato waxaa dhacday marka niman 5 ahaa oo ciidankii meeshu fadhiyay ilaa lahaan loogu soo daray halka isgaarsiinta marka hore laga jaray meesha tuulada dagaal ka dhacay marka 5 nin oo ilaalan loo soo diray ciidanka deegaanka meel fadhiya bay afka uga soo ganaadu 5 nin halkiiba ku qodbaxeen haddana saaka dagaalkan socda waxaa dhacay marka in ciidamadan jabhada iyo maleeshiyaanka wada socday ahaa oo maalmahanba aad u soo goodinayay lahaana ku hadaaqay hadaladooda ay ka mid ka ahaayeen in deegaankan ay xuduudiisa xidhanayaan deegaanka Soomaalida saaca laga bilaabo inuu ka tirsanayn deegaan isku madax bannaan oo madaxweyne ay u dooranayaan uu yahay saaka haddana xilli hore oo ii sheegay abaaro 1 subaxnimo markay ahayd bay weerar soo qaadeen 4 jaha ay ka soo qaadeen waa garta marka asalkiisii hore dagaalku meeshuu ka soo bilaabmay bal xog kooban naga sii asalkii meeshii ugu horreysay marka hore ka soo bilaabmay asalkii hore waxaa jiray saad la socoto dadkeena macnaha Soomaalida oo shacabkeena isdhex degan khilaaf laga dhex waayay isku dhac beeleed isku dhac beeleed baa jiray oo isku qabqabsi dhulka macnaha xuduudisha gobolka Jari iyo gobolka Faafan meel ay wadaagaan halka marka waxaa ka dhex faa'iistay qoladii jabhada ahayd iyo maleeshiya wada socotaba ka faa'iideystay waxayna dileen hogaankii Dawacalo oo u tagay macnaha deegaanka Dawacalay u tagay xalin u tagay iyo gabadh la socotay halka ku dileen oo degmada gobolka Jari degmada Dawacalo gobolka Jari ka tirsanayd ahayd hogaankeeda nabadgelyada waa garta taa waxaa la yiri marka macnaha yaan ii sheegay talaabo la qaadin ee si nabadgelyo ah lagu xaliyo dhulkana hala isha loo kalaasteeyo shacabka waa garta hawshii markii la galay baa waxaa jirtay ciidan mas'uuliyiin oo deegaanka uu diray iyo gobolada Faafan iyo ka kala socday oo halka tagay ciidankii marka bay qolyaha dhalinyarada iyo aduu dad fooda ah wadaba soo weeraray ciidankii waa isha way xabaday kor ugu rideen oo way kala cayriyeen wax yar kadib marka waxa rag u baysan baa meeshii soo galay
askartii marka mid la ii sheegay la socday baa meesha lagu dilay marka ilaalada mas'uuliyiinta ahaa waa garta haddana habeennimadii markay ahayd baa waxaa dhacday in habeennimadii waa meeshii la iskaga dhaxay oo ciidan afartameeya baa meeshii joogay oo saldhigga ku sugnaa dacwaley ciidanka deegaanka odayaal baa marka fiidka u yimaada waxay ku dhaheen rag waxaa jira hubaysan meesha iskaga baxay ku dhaheen taa marka ciidanka waxay dhaheen amar uma haysana inaan meesha ka baxno oon ka tagno waayo saldhig baa ku yaala saldhigga amar la'aan ma banayn karo haddana odayaashu ka tagay wax yar kadib ku soo waxay dhaheen arrinta waan xalinay iska jooga ciidanka ciidan culays soo fulay buu ahaa waxay soo dirteen gurmad bay dhaheen soo gaadhay yar waxaa jirta culays baa jira gurmad hana soo gaadhay bay dhaheen aroortii gurmad baa loo diray gurmadkii saadu ugu tagay baa weerar lagu soo qaaday ciidanku difaac bay marka galeen oo ii sheegay ayagii difaac bay galeen isdifaacaana waa garta way marka ciidankii kale maleeshiya beeladka ee dagaalka soo qaaday baa la jabiyey kadib haddana gurmad kale oo aduu xaggan ka tegay madaxtooyadii ka tegay baa dhexda loo galay oo jidgooyo loo dhigo oo iyagana halka khasaare badan lagu soo gaarsiiyey oo qolada maleeshiya beeladku ay jabadda wada socota ay dhexda u galayaan adigu isku soo duubduub oo dagaalku si guud wuxuu ii sheegay uga bilowday markii hore isku dhac qabiile baa jiray laakiin waxaa jiray macnaha gacan saddexaad oo soo dhex gashay oo jabhada meesha ka aasaasan muddo aan 6 sano inay aasaasan tahay oo la baxday isaaq weyne reserve area wax noocaas la baxday baa jirta iyo maleeshiya beeleed soo raacay oo technical wata dee shacab technical wata ma jiro laakiin niman jabada oo technical wata bay ahaayeen iyo ciidan caadi ah oo ii sheegay loo badinayo inay dhanka Soomaaliya maleeshiyadooda yihiin oo la socday waayahay Siraajow maadaama aad si fiican u faahfaahisay sida uu ku soo bilaabmay iyo xaalka guud bal saakay aaga uu dagaalku ka socdo iyo dagaalkaasi awoodiisa bal xog kooban ka bixi saaka horta dagaalku culays badan buu leeyahay ciidanka deegaanka waxaa jirtay meel ay macnaha fadhigoodu hadda ahaa oo ciidan badan halka ay fadhiyeen oo u dhoweyd deegaanka dacweyl oo la dhaho dudbaali la dhaho oo degmada yuucaalo gobolka jarar ka tirsan ciidanka halkaa la iskugu geeyey macnaha ii sheegay maalinka hore dagaalku markuu qaar halkaa la iskugu geeyey oo muddooyinkan baa macnaha amar aan lagu siinin inay meesha galaan oo lahaa ka jooga baa saaka weerar waxaa ku soo qaaday marka ciidamadii jabhadda ahaa ee dacwaley fadhiya meesha dagaalka maalinka hore ka dhacay ahaa maalmahanba aad u soo goodinayay baa weerar ku soo qaaday weerarkay ku soo qaadeen marka ciidanku isdifaacay waa lala kacay ii sheegay qoladii maleeshiyadii iyo jabadii wixii baa lala kacay adigu hadda deegaanka dacwaley bay macnaha xaaladdu maraysaa oo ii sheegay ciidanku ku hareereysan yahay ciidanka waxaa xusid mudan inuu ciidanka deegaanku soo saaray macnaha laamaha amnigu ay soo saareen bayaan ah in wax xuduudka ka soo tallaabi karana uu jirin oo gaadiida wax ka bixi karana uu jirin xuduudkan uu xidhan yahay wixii gaadhigii xuduudka ka soo tallaaba ama ka baxana ciidanku deegaanku la wareegayaan marka xaaladdu hadda halkaasay maraysaa khasaare badanna wuu dhashay kuma dhihi kara hadda khasaaraha waa iisheeg waa intaa iyo intaa laakiin xagga ii sheegay khasaare badan baa ka dhashay meesha oo u badan xagga dad badan baa dhintay dad badan baa dhintay oo u badan xagga maxaan ku dhahday xaggan maleeshiyada weerarka soo qaaday mar walbana waa dareemi kartaa ciidanka weerarka iyo ciidanka isdifaaca ciidanka weerarka mar walba jaba waayahay waxay dad hadlayay oo dadka dhinacaas Soomaaliland ka soo jeeda ay sheegeen in markii hore laba qabiil ay dirireen kadibna ciidanka New Wales ay qabiil la safteen dhinaca dowlad deegaanka xiga arrintaas bal ka waran ayada taas waa macnaha waa ku tarokitana sababta wax ciidan oo dagaalamay oo meesha ciidan macnaha istifaacay oo la laayay oo xiradoodii waa dareemi kartaa ciidan deegaan oo meel xiradoodii degan cidda weerarka soo qaada mar walba gardarrada leh shacabkuna hubba iskuma haysan hub ka dhis baa lagu sameeyey oo macnaha labada shacabba macnaha laamaha ammaanku waxay aad iskugu dayeen inay hub ka dhis marka hore sameeyaan oo macnaha ay kala dhex galaan haddii macnaha waxaad dareemi kartaa inay taas macnaha ay waxba kama jiraan tahay markii hoggaanka nabadgelya la dilay baa weerar la qaadi lahaa oo laamaha ammaanku maadaama nin amniga ka tirsan uu ahaa ninkanu markaasay dagaal qaadi lahaayeen laakiin wax ciidan wax shacab oo meesha isku laayay ma jiro ciidan dowladda meel degan baa waxa soo weeraray niman jabhada muuqaalada laga yaabaa inaad Facebook ku aragtay oo uu goodinayo oo hanjabayo ninkii lahaa waxa wata ciidamada jabhada marka jabhad hubaysan oo meesha soo gashay bay ahayd oo shacabkaana ku awrkacsanaysa macnaha fikirra bahalkii ah inay deegaan ka jaranayaan waxna ku abaabulanayaan
ها bal deegaankan dawacala iyo meeshu ku yaal iyo dadkaan aqoon oo kale see loogu sharxi karaa deegaanka dacwale wuxuu ku yaalaa degmada xarshin buu hoos tagaa waa tuulo ii sheegay gobolka jarar iyo gobolka faafana meel ay iska galaan weeyaan oo tuulooyinka ay iska galaan bay kamid tahay dacwale waxayna ka tirsan tahay degmada xarshin oo gobolka faafan hoos tagtaa xadka intee u jirtaa marka ma aad buu ugu dhowdahay xuduudaadka meesha lagu xadka uma dhowa xadka aad uga fogtahay sababtoo waa deegaanka bartankiisi waa gobolka jarar waxaa laga yaabaa inaad maab ahaan inaad ruuxi arkeen uu arkay kii kalena uu maab ahaan ku arkay waa macnaha deegaanka bartankiisa weeyaan marka oo gobolada ii sheegay doolli iyo si markii loo dhowro si yar hoosoo liil abuu uga soo xagga gudaha u jiraa oo xagga uu xigaa gobolka nogob weyn uu xigaa marka waa deegaan soo raacsan oo degmada tuulada dacwale waxay soo raacsan tahay degmada yuucalo gobolka jarar hoos tagto oo u dhoweeyo marka gudihii weeyaan waa meesha lasla soo galay waa gudihii oo jabhaddaasuna dee ayadoo kusoo dhuumanaysa macnaha qabiil ahaan ayadoo kusoo dhuumanaysa bay soo dhex gashay shacabka oo macnaha ay ii sheegay shacabka ay ayadoo ka faa'iidaysanaysa macnaha colaadda meesha ka jirta iyo colaad ma jirin macnaha weerar toosa laisku qaaday laakiin saan colaadeed baa jirta oo labada shacab u yara dhexaysay marka israajow meeshaas waxaa degan qabaa'ilo kasoo kala jeeda somaliland iyo dhinaca kale ee dowlad deegaanka oo baa degaamiya maya mo ii sheegay aankaas waxaa halkaas macnaha labada shacabba deegaanka ka tirsan yihiin labada beelood ee meesha degan ee sahayaba waa laba dad shacaba muwaadiniin oo deegaan ka tirsan weeyaan marka deegaanka mas'uuliyadeedii deegaanka iska lahayd macnaha wixii amnigooda sugitaankooda wixii xalintooda deegaanka iska lahayd laakiin jabhad nidaam qabiilu abaabulan oo macnaha foodo ku socota baa gudihii soo gashay oo xuduuddii ka soo tallowday waa gartay marka arrintu waxay tahay wax iskuma jirin isku dhac sax oo qabiilo oo hadda iisha meesha ka jira ma jirin laakiin ciidan deegaan oo ciidan amni oo meesha laamihii ammaanka booliskii wixii loo meesha u tagay xalintii baa raggan ay maleeshiyadu iyo jabadda wada socota ay soo qaadeen weerar ku soo qaadeen aad baad u mahadsan marka in badan bay isku dayeen in deegaanku inuu ka baaqsado dagaalkaas oo nimanka loo digay oo erga loo diray balse ergadii wejigabax ay kala soo kulmeen in macnaha ay ka tallaabaan xuduudka ayagoo khasaare geystay oo macnaha dhibaato badan geystay haddana inay xuduudka saa kaga tagaan oo xuduudka banneeyaan